dadku wixii deegaankaaga ah waxay aaminsan yihiin in oromanimadan aad ku dartay aad adigu mashruuc ku qaadatay arinta ma jirtaa oo ay leeyihiin anagu oromaba ma nihiin dad gaar u taagan cid wax laga weydiimayn ummadan iyagu isma taliso waa loo taliya abagaadhoodii guud yaa u taliya markaa abagaadha u taliya ana u taliya waxaad ku talisay in deegaankaagu oromo noqdo ma oran taas xaasha lillaah habbi huwinto kala aad ku hadlaysaa maxaad ku talisay way alla taliya leedahay maxaad ku talisay alaynu nahay waa dad inaga ah waa dad deegaanadan ka soo faracoodu ka soo jeedo waa dad reer Soomaaliland waliba reer Isxaaq oo habaryooniso waa G37 baan ku leeyahay den ism abagaadho lagu waraysi sar jooge in fariis abagaadho sakriye bal xogta aad hayso bal nasiib bal xog abagaadhnimadeedu waxa ay goysay ilaan kursi baad soo cimaamaday yaa ku cimaamad horta intaan su'aasha ku weydiin abagaadhnimadan yaa ku cimaamaday ismaan cimaamadin maskabka Ilaahay baa bixiya samadu ka baxaa qofna ma doonto aniga isaga ay soo doontay waxaana ii cimaamaday 40 milyan ka badan in ka badan 40 milyan oo dadka aynu diris wadaaganahay aynu walaalaanahay qomiyada Oromiyo oo ay waliba ku jiraan ardaaga G37 waa beelka kamida beelaha habaryoonis oo la yiraahdo habar nuusa ama dandaan carre marka taa ku noqon mayno dadku ka wada dhirigsan yahay abagaadhnimadeeduna waa mid muttafaqo calayha oo la isku wada raacsan yahay aniguna dad uma yihiin qabaa'ile waxaanu ahay labada wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya maxay goysay abagaadhnimadeedu waa laga yimaado abagaadhnimadeedu waxaan heshiisiyaas afkarada hordhaca baan halka ku soo galnay iskaashi dhinaca waxbarashada ah ganacsiga ah dhaqanka iyo siyaasadda qodobadii ugu horeeyay waxaan halka uga mahadnaqayaa safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliland ee waddanka Itoobiya oo maalintii shalayto soo booqday deegaanada ay tolku degaan Baatu waliba Siway halka ku taalo harada weyn ee Siway runtii wuxuu halkaasi ka fulay oo shalayto ku soo saxeexay MOU ama heshiis is-afgarada hordhaca ah kaasoo uu la soo saxeexday madaxweynaha jaamacadda State University oo ku taala xudunta dadka aynu tolka nahay ee deegaanadaasi dega G37 ama dandaan carre ama habar nuusa loo yaqaano taasoo ka mid ah qodobadii anigu aan gogol xaadka u ahaa halka u tagay qodobada kale runtii iskaashiga ah iyo in idinka waqdariya ay maal gashadaan oo heshiisyada anigu aan la soo galay heshiisyadaas xukuumad maadaama dawlad leenahay yadaa dhamaystiri doonta waana ku hambaleynayaa sidii milgaha iyo sharafta iyo qiimaha lahayd dadka odayaasha dhaqanka iyo ardayda iyo macallimiinta jaamacadda State University ee magaalada Baatu ku taala Siway ama Siway harada weyn ee Siway aad baan ugu mahadnaqayaa waa intaas oo aynu ka sii kordhino hawluhuna way socdaan haddii Ilaahay ka dhigo heshiisyaduna dhaqangal bay noqonayaan waana ku hambaleynayaa safiir ku-xigeenka safaaradda Itoobiya heshiiska hordhaca MOU-ga uu soo galay isagii madaxweynaha jaamacadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawlaha dadka qaar baa wuxuu haystay inay brank yihiin iyo barkumataala wad arkaysaan dawladdii inay soo booqatay heshiisyadii abagaadhuhu soo galay ee hordhac ahaana inay fuli doonaan oo MOU ay safaaradda Soomaaliland iyo Itoobiya u bedeshay aad baan idinku mahadnaqayaa maanta waxaan doonayaa inaan inta idin la wadaago waana hambalyeynaya safiir ku-xigeenka nin dhalinyaro ah oo isaga laftiisa halka loogu cimaamaday oo heshiiska maxaa kamid ah marka dhaqankii dadkaas ay lahaayeen dusha laga saaray sawiradoodana waad haysataa heshiiska maxaa kamid ah heshiiskaas waxaa kamid ah heshiis dhanka waxbarashada weeyaan waxbarashada ma waxa qaadanaya un deegaanka aad sheegtay oo kaliya may waxay u taagan tahay jaamacadda State University jaamacadda ummadda Oromiya iyo sidoo kale dhanka kale uu safiirku wakiilka ahaa ee Soomaaliland labada waxbarasho ayaa iskaashanaya cilmiga iyo aqoon kororsi baa laga faa'iideeyaa arrimihiis dhexgalka qodobadaasi waa qodobada ugu horeeyay marka fulay kuwa kale insha Allah dhawaan bay fuli doonaan aad baad maasantay dadku wixii deegaankaaga ah waxay aaminsan yihiin in oromanimadan aad ku dartay aad adigu mashruuc ku qaadatay arinta ma jirtaa oo ay leeyihiin anagu oromaba ma nihiin dad gaar u taagan baanu deeyaa oromo ah cidimay oromayna adiga yiri hadda walaalaan meel ban walaalaynu nahay waa dad inaga ah waa dad deegaanadan ka soo faracoodu ka soo jeedo waa dad xilliyo hore ama qarniyo hore halkaas u haajiray waa dad reer Soomaaliland waliba reer Isxaaq oo habaryooniso waa G37 baan ku leeyahay ardaabay lambarkiisa siistaan aad baad ma yaa cadeynteeda ku sheegay ilaan waqtigaana maad noolay waa la wadoogi waana cadeynteedu waa rasmi
waana imanayaan wayna yimaadeen kulamo badan oo Twitter space ka dhacay habeen hore qayb bay ka ahaayeen dadka diidan maxaa leedahay anagu dad gaar u taagan cid wax laga weydiin ummadan iyagu isuma taliso waa loo taliya abagaadhoodii guud yaa u taliya marka abagaadha u taliya ana u taliya maxaad ugu taliya waa amar weeyaan waa loo taliya waxaad ku talisay in deegaankaagu ay Oromo noqdo dad ma oran taas xaasha lillaah wariye maxaad ku talisay afkii huwantoo kala aad ku hadlaysaa maxaad ku talisay way ana taliya leedahay maxaad ku talisay dadku way isleeyihiin dad badan oo ka soo jeeda asal ahaan halkan ayaa xagga u haajiray sanado badan ka hor dadkaasi halkaas ku dhaqmeen dadku way isleeyihiin marka dhinaca kale marka loo eego dadka halkan ku dhaqanay reer Somaliland awoobe u yihiin qaybina waa xabuushaqo qaybina waa magaado labaduba xaggaasi ka soo jeedaan ayeeyo ka soo farcameen dadkani waa ilaa hadda taladii ma sheegin taladu waa saas weyn dadku waa iskaashanayaan waa dad walaal ah Oromada iyo deegaanka ka soo jeeda waa iskaashanayaan waa laba dawladood Somaliland iyo Ethiopia qowmiyadahooda ku dhaqan waa dad isku mid ah waa dad walaal ah dhan walba way iska kaashanayaan dhan cudud military mid dhaqaale iyo mid waxbarasho iyo mid kastaba way iska kaashanayaan